waxaa muddooyinkii dambe si xad dhaaf ugu soo badanayay magaalada borama noocyada kala duwan ee gaadiidka gaar ahaan kuwa dadweynuhu adeegsadaan iyo baabuurta casriga ah ee raaxada loogu talagalay sidoo kale waxaa meesha ka maqnayn gaadiidka loo yaqaano bajaajta ayaa sanadihii ugu dambeeyay saxawliga ugu soo kordhaysay guud ahaan magaalada borama haddaba gaadiidkan iyo marka la eego isku dheelitirnaanta jidadka haddaba gaadiidkan buuxdhaafiyey magaalada borama oo aan haysan jidad waaweyn ayaa halis mararka qaarkood ku keena dadweynaha taasi oo keenta shilal ay ka dhashaan dhimasho iyo dhaawac arrintan ayaa marka dhinaca kale laga eego ayaa waxay gaadiidkani ay qayb ka yihiin horumarka laxaadka leh ee ay ku tallaabsanayso magaalada borama kaasi oo wax ka tara dhinaca isku socodka ee waaxyaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada borama gaadiidkan ayaa mararka qaarkood sida waqtiyada duhurkii sababa in isku socodka dadweynuhu ay ku qaadato waqti dheer halka gaadiidka ku soo badanaya magaalada ay culays ku hayaan bulshada nugulka ah gaar ahaan caruurta iyo waayeelka kuwaasi oo kala kulma shilal aan caadi ahayn gaadiidkan ayaa xilliyada qaarkood ay adeegsadaan dad aan sharci u haysan wadida gawaarida si kastaba ha ahaatee ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee magaalada borama ayaa waqti xaadir kan looga baahan yahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan gaadiidka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada borama sakariya saxane raya TV borama